kuwa dhahaya arkay waa in la kala adkaada maalintii hore xasan sheekh marinaay lagu bursanayay saas u beelaayeen kuwaas wax ma garato haddaan dawladnimo la diido nin walba wuxuu ku qasban yahay inuu deegaankiisa iyo reerkiisa isku difaaco رئيس وزراء هوري حسن علي خير يصاحب كيتري هوري نبسويدا عبد الله سنبلوشي وحلي ويرر قردراء وظلمي lagu qaaday ayaga iyo siyaasiyiinta kale iyo dhalinyaradii halka ku sugnaa iyo odayaashii markii dambe ku biiray ee dhaqanka iyo waxgartii kale ee dhaxaadinta waday holkan aan joogno meeshan 19 Febraayo waxa shir jiraad ku qabtay aniga iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo saaxiibkeen Cabdikariin Xuseen Guuleed habeenkaas waxa hotel Maa'ida lagu weeraray Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo labadaba markaas ahaa madaxweynayaal hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan hurdada laga soo kiciyay aniga halkaan baan shirgayd oo ku cambaareynayna weerarkaas ku qabanay sidoo kalena uu muujinayna gaar istaag saaxiibadeen markaas aan ku wada jirnay midowga musharaxiinta oo xashar kamid yahay waxay u tageen hotel Maa'ida inay abaabulaan mudaharaad galabtii waxaan tagnay daljirka Dahsoon annaga waa ka soo hoyanay inaan mudaharaad dhinacan ka abaabulno ayagana xagga ay ka abaabulaan subaxii habeenkii markii la weeraray subaxii annaga mudaharaadkii waan abaabulnay waataad ogtiyoona la xabadeeyay aniga Ra'iisul Wasaare Khayre saaxiibka Cabdiraxmaan Odowa Cabdikariin Xuseen Guuleed ragay ku jiraan iyo hadda taliyaha nabadsuugida Maha Salaad ragay kamid yihiin yaana la xabadeeyay horta dadkii shalay nala mudaharaaday shalay nala socday shalay nala diidana in mudaharaad la caburiyo la xabadeeyo in qof deegaankiisa lagu weeraro horta ayaan darada ugu weyn waxay tahay waxaan u malaynayaa markaas madaxweynihii hore madaxweynaadkiisa wuxuu dhaafay 2 usbuuc laakiin Xasan Sheekh waa meeshii kale waay laakiin muxuu dheeriyaa isaga wuxuu dheeriyahay in deegaan 4 xaafadood ay ku kulanto والوذاك هذا وبري يوريجلي أو كوارري هو بنوع كستوليه هو بيال درونز مدافع لقصو توراي هو بيها مدحتو يده وهو بالله إيه عيدا إيه قامين أيان ويلال أسقى إيه اللي قراب الله habeenkii xashaq waxa soo bixiyay taliye Odowa waan xasuustaa markii subaxii la keenay xafadiisa ku booqan sida hadda u soo booqanay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr xaafadaas oo duqeynaya Xasan Sheekh shacabku way ka qaxeen waxa ka sii daran marka odayaashii dhaqanka deegaanka ugaaskii Mursade ugaaskii Abgaal imaamkii Abgaal iyo sanataro iyo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan yaa ku jira meesha Xasan Sheekh xalay oo duqeyna aniga markaan ka qoosto horta xalay ninka waa la dhigi karaa siyaasi waa isbaxsanaya inkastoo wax mubarar aysan lahayn laakiin dadka qaar lagu qaldi karaa laakiin odayaal dhaqan inta taleefanka dansado subaxii hal soo afjar u yiraahdo oo kuwii asaga dhaqankiisa ay ku jiraan oo hoose iyo kuwii koraba وأوجاسكي شلي وحكي على مساري نينك أو أمرأي إن لجوريدو كمكاجي وكعون هاي دولة تركيا درونا دي أكيد إن شباب لقولات دجالمو إن معارض يقضيات نقل لجوه الرأي تركيا وإن أوجادان هذا يسدد صوماليا ونحاي إيهين هرتوا أيان درو إنه كسو عليو وحي أساي شلي وكعبنا أي وحكي درك تنسوا حدر سيد الله الشاقي
wiilka haramcad haysta ee xalay hoobiyaha garaacay iyo wiilka ciidamada ilaalada haysta gaarka ah iyo wiilka madaxtooyada guutadeeda haysta oo kulligood xashan sheekh ayagaa yidhi ciidamada kale ha noo baneeyaan boolis iyo nabad sugid annagaa soo afjaray waa wiilal xasan sheekh oo waalid iyo qaraabo la ah waxaysan ogeyn 90kii muqdisho waa la soo afjaraa in lahaa cali mahdi iyo caydiid iyo qanyare allah wada naxariistee waa ay soo afjarayna un bay lahay hadda wuxuu u socdaa sheekh shariif malaha 90kii wax la dhaha maahan 90kii eeba laba qabiilood oo hawiya dhex joogtayba hadda wuxuu u socdaa waa abgaal dhexdiisa xasan sheekh oo dagaalka rid shalana wuxuu weerarayay waa beesha mursada ay ahayd wuxuu u socdo waa inuu xamar ka dhigo meel qabiil la isku dagaalayo waana ka digni hore uga digni maxaa saas yeelay sideedaba al-shabaabka iyo maleeshiya beelaadka waxay u kala duwan yihiin waa sharciga iyo dastuurka inay ku dhaqmaan kaliya ku kala duwan yihiin ma inay dhibkay geysanayaan isay wax yeelayaan qaabkay dagaal ku galayaan ma wiilasha xalay ra'iisul wasaaraha iyo siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka hoobiyaasha iyo kamakaajiga ku garaacay sharcina kuma socon dastuurna ma hagaynin xeerna kuma soconin wax dhaqana ay ku socdeen ma jiro wax ay maleeshiyaad ka duwanaayeen iyo argagixiso ma jiro runtii waayaan daro hadda isku haystaa inay dawlad u shaqeeyaan dawlad uma shaqeeyaan waxaan leenahay war xasan sheekhow hadday wax aqliga kuu dhiman yahay walaalo wax aqliga hadduu kuu dhiman yahay raggaanu rag baqanaya ma adaa baqalaha markaad maaidin nooga soo cidisanaysa markaad mirnaaye nooga soo qeeldheemanaysa adaa baqalaha annagana adiga kaama liidano war rag baqanaya ma nihin rag cararaya ma nihin rag cabsanayana ma nihin yose waqti kaa lumin wiilashaa yararkaane dembi ha gelin aad askarta garaadaha aad ku siisay si aan sharci ahayn oo eexaad ku siisay ciidan baa waxaa hogaaminaya ninaa weligiis xero military xataa meesha ku taala arkay say ku dhici kartaa soo eex maaha markaasuu afka ka ubrinayaa hebel baan soo afjarayaa ree hebel baan soo afjarayaa uu leeyahy war ayaan darada aad ku wado soomaaliya iyo caasimaddan wax la qaadan kara maaha annagana gacanta inaan ku qabanno mas-uuliyaddeedaan leenahay waana ku qabanaynaa waxaan leeyahay dadka reer muqdisho kuwa dhahayaa arka meelaha ku soo qorqoraya madasha mata bixinta way qaybsan tahay ma qaybsanin aaggeenna mudaharaadka annaga halkanaan joognu ahaa anigii saaxiibaday ra-iisul wasaare rooble iyo cabdiraxmaan odawaay ragga lamid xasan khayran inuu halkaas ka soo abaabulo sheekh shariifna halkaas ka soo abaabulo markii ka horreysay 10kii bishani annaga unbaa bannaanka u baxnay inta xasan cali khayre unbaa joog wax qaybsanaan ah iyo CBB-da xasan sheekh ay suuqa faafinayso horta wax ka jira ma jiraan laakiin ilaahay mahadis annaga xabadna ma qabsan intaas waa farqiga yahay un annaga xabadna ma qabsan taasoo dadka inaan u caddeeyaan rabaa midda labaad mudaharaadka waa soconaya waana xaq sharci ah dadka reer muqdisho waxaan leeyahay kuwa dhahaya arkaya waa in la kala adkaadaa maalintii hore xasan sheekh marnaayo lagu bursanayeen saas u bay lahaayeen kuwaasoo wax ma garato inaan u jawaabo ma rabo laakiin sharciga iyo dastuurka iyo heshiiska siyaasadeeda lagu kala adkaadaa waayaan dara maanta annagoo heshiis siyaasadeed haynin sharci haynin dastuur heshiis lagu yahay haynin doorasho haynin inuu xilligii ka dhammaaday madaxweynihii horeaba dhaanbayba at least maalintii rooble la magacaabayay 17kii September ayaaba heshiiska la gaarayba waxa la isku haystay fulintiisa ahayd kan wax la isku haystaa uma laba dalka anaa iska jooga kaliya la isku haystaa waxaan mar kale ku celinayaa ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida qaasatan saraakiisha wax hogaaminaysa wiilasha isku soo sawiraya hubka isjooxaarinaya war kuwa hortiinsaan yeeli jiray soo aqli ma lihiin miya kuwa hortiinsaan u boodboodi jiro isjooxaari jiray meelay tagayna ma jirto saan un baa ugu aqal celi jirnay idinkana waa inay aqal celinaynaa waxaan leenahay sargaal kasta waa lala xisaabtamayaa kuwa aan magacyadooda gudbinay
oo maxkamadaha gudaha iyo dibadda laga horgeynayo iyo kuwa aan keeni doonaba intaba waa la xisaabtamaya waxaan ugu dambeyntii leeyahay haddaan dawladnimo la diido nin walba wuxuu ku qasban yahay inuu deegaankiisa iyo reerkiisa isku difaaco ma jiro nin u sheega kara awood qabiil ciidan loo geliyo magac qabiil iyo saraakiil magac qabiil nin ku qabsan kara ma jiro waxaas ayaan dara ah ninka raba ciidan qabiilkiisa ah inuu qabiil kale ku qabsado ama uu ku gumeeyo ninka raba ayaan dara ah asayna khasaarada u dambeyn doontaa nacasnimo taas ka weyn ma jirto war xasan oo hadii wax aqliga ku dhiman yihiin walaalo aqliga u soo noqo ma santiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka